جمعة وناكسن رمضان وناكسن waxaan idin kala soo hadlayaa bartamaha degmada Owdheegle ee gobolka Shabeellada Hoose halkan waxa soo gaaray taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed Sariye Guuto Sahal Cabdullaahi Cumar General Khalid iyo saraakiil uu hogaaminayo taliyaha ayaa halkan u soo gaaray dhiirigelinta dhiiranayaasha geesiyaasha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee halkan ku sugan taliyaha soo gaaritaankiisa Owdheegle kadib waxa uu kulamo gaar ah la qaatay saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo sidaas oo kale saraakiisha kale ee markaas qaybta ka ah howlgalka EUSOM waxa uu kala hadlay xaaladda guud ee markaas degmada Owdheegle iyo deegaanada ku teedsan taliyaha ayaa saraakiisha ka xal wareystay xaaladaha guud ee amniga ee halkan iyo sidaas oo kale deegaanada markaas ku teedsan geesta kale taliyaha waxa uu kormeeray difaacyada hore ee degmada Owdheegle ee gobolka Shabeellada Hoose isaga oo dhiiranayaasha geesiyada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ku amaanay dhiiranaanta ay muujiyeen iyo sida mar waliba ay kaga foojigan yihiin dagaraha iyo qataraha cadawga geesiyada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa howlgalladii ugu dambeeyay argagixisada waxay ku gaarsiiyeen jab culus iyaga oo markaas kaga dilay maleeshiyaad iyo horjoogayaal dhowr ah argagixisada markan waxa ay maraysaa maalmihii ugu dambeysay ee nafal caariga ah waxaana gaaray jab culus waa Sakariya Qaasim Bagax oo idinkala soo hadlaya bartamaha degmada Owdheegle